بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، جزاكم الله خيرا. وحقيقة مقداد أدو كلا الدول معلمين بروفيسور أو بيرها كنت تخصصي leadership team ماشي وكذا حركة كلية بيرها وكذا حركة قبلها سيكارة لما أنتوا ما سنتين ما لا يريدونه كلي وحنا كسوقوا دونا 6 بوينت 6 خطب مد كواد وما أنت أنجونه لبارتي بيرها عبشكور رتوحات أوفر عسان هاي تيم كيسة هوشة مكي بلا بعيد وإلى سو حرير ما ننسى واحد زوجته أستاذ وحاربنا إن هوشي عن بلاونو سوشيال ميديا عن قلنا عد كي بيرها عن قلنا طلوين بدنا أساسية أنا حتى أجمع على ما أنت ما كان أركي فيديو توصلنا كده هوشة أقفتين عليس كده إيوه فيسبوك كلا سعود طبعا لكن سفرات استرد بدنا أي سمايين ريسيرجي أي سمايين رنتي wake up أي وتاي براروجين qofka Soomaaliga inuu ogaado wuxuu dhageysto program oo beer inuu jiro waxaan kale oo isla topigaas khuseeyo xilligaas jaamacad Zamzam kulliyada beeraha intaan la furin ka hor waxaa jiray macadka beeraha macallin yiraahdo beerleydan u tagay jirnay gaar ahaan shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe inta la keeno safar la soo geliyo 2 isbuuc 3 isbuuc training la siiyo qalab agoo inta uu muhiimsan ah basic la siiyo markaas meesha ta tagaan beerooda ku laataan waa fikradda jaamacadda kulliyada beeraha lagu furay meesha ka bilaabatay waa teamkan hadda xoogooda u jeedaan waxay ahaayeen 48 arday oo lagu bilaabay kulliyada beeraha su'aasha ugu weyn ee weydiin jiray waxay ahayd ustaad beeraha takhasus fiican miya su'aalaha ugu badan ee had markaas xilligaas ee nagu dhaweynay kamid ahayd markaan waxaan dhihi jirnay wadan aan beer lahayn ama wadan aan food security aan maartay gacanta ku dhigin ama aan xaqiijinin waa gaajadana waa amni darro sida professorka uu sheegay alxamdulillah xilligaas marka wadankan greenhouse ma ka jirin Soomaaliya wax greenhouse la yiraahdo inta saas loo dhiso guriyo beer lagu tacbo ama khudaar lagu tacbo ma jirin waxaan kaloo jirin waxa loo yaqaano calafka sniperka ma jirin wax yaab leh xilligaas bal waxaa jirtay fikrad ah inaan xamar wax lagu beeri karin maanta Muqdisho iyo afgo inta u dhaxayso imisa greenhouse ku taal imisa beeraha ku taal dhulkan gaduudan hadda Muqdisho imisa ku taal ma jirin fikradaas waxa la jiray caracad waa xamar waxa lagu beeri karo laakiin markii professorada ahaa oo tika ka socday markaas iyo ka socday iyo Zamzam isku tagay waxay xaqiijiyeen in Muqdisho dhexdeeda khudaar laga sameeyo kadib jaamacadda farceeda weyn xagga laga furay farci weynaa wuxuu keenay in la sameeyo qaybo quudiyo safaarado iyo isbitaallo dalkan ku yaalo marka horta fikradda Soomaaliya wax ma ka bixi karaan ama Muqdisho ina wax ka bixi karaan ama roob la'aan iyo wabi la'aan wax ma la tacbi karo meeshaas ku baabaaday 10 sano ka hor maanta marka dadka Soomaalida beeraha ay u arkaan طبعا kacdoona dhacay dadku xoolihii iyo beerihii iyo badii la malgashana qof kasto maanta Soomaali joogo wuxuu ka fikiraa soo beer ku heli lahaa beeru maanta waa raqiis laakiin beer raqiis ma noqon doonaan Muqdisho iyo afgooy laami ala saar Soomaan Muqdisho balcadna laami ala geeyay beerahaas way ka qaalisan yihiin beeraha kale way soconaya marka hadii kan baraha la sii geeyo kaasna ilaa iyo baladweyne la sii geeyo maxaa dhici doona markaas beer shabeellaha dhexe ama shabeellaha isku taal ma gada kartid haddana jubooyinka loo sii gudbi doonaa marka waxa isku xiran yihiin waa amni waa transportation oo jidadkiya ku xiran wax badanaha isku xiran dadka marka istaraatiijiyada yaqaano oo sida wax loo tacbad yaqaano ama ganacsi yaqaano way naga horeeyaan beerihi maanta waxa laga yaabaa afgooye hektarkii oo wabiga u dhow 9,000 10,000 oo ka kaca dollar laakiin marka si dhaafto aw dheegla dhigaarto janaale qoryoole dhulkaas saas u socoto uu ka sii yaraana 3,000 4,000 hadoo beerta birma ay tahay marka beeri waa la fahmaan ka wada ujeedada waxa waaye Soomaalida beeri way faantay mana u baahna marka qaar inay roob sugaan natural uma baahno wabina ma u baahno magaalooyinka meelaha u dhow ceelashii magaalada laga soo qaatay tubooyinkii saacada lagu xirtay saasay hawshay ku socotaa marka arintaas horta waa arin oo qayb kamid ah walaalaheen ay
zero kasoo bilaabana dhihi karaa inay u sheegaan ummadda xilli aan la fahansanayn waxa beere ay yihiin taas waa intaas su'aalan isweydiiyey su'aal ahaan afarta xilli ee Soomaaliya ay leedahay seasonka loorka galleyda maanta meequu joogaa xilligan beeraleyda aaw maanta loor galley meequu joogaa yaa hadda maanta xilligan lacag joogaa nambarkeedaan rabaa waa imisa waa ka badan yahay 50 ilaa 60 u dhaxeeya waa hadda xilligan sii soco marka wax yar kadib bil kadib wuxuu noqon doonaa $15 marka wave kaas dhacaayo oo miisaankaas dhacaayo suuragal miya yani from 60 70 oo ka soo bilaawdo marka qaar oo $15 oo imaado yani within 1 year oo saas u sabeeyo adduunyada meel ka jirto malaha baa adduunyada uu go'an yahay sababta maxay tahay marka hal mar galley ay soo go'day from Baydhabo ilaa Igado ilaa Jibooyinka ilaa gobolada dhexe ka soo go'day qofkii jaanis kala ma haysto wax ku sugo jid oo xamar ku keenay ma haysto roob daayo ma sii sugi karo kayd ma haysto wax u kaydinayo gaarsiinayo dhowr bil kadib ma haysto wuxuu ku qasbay marka suuqa inuu ku soo shubo hal mar suuqa loo soo shubay yaa u baahan $15 noqotay waxa kadib wixii way baabeen waa la waayay roob daay abuurkii la galay xilliga abuurkii waa bishii April waay hadda la soo dhaafay April May June July intii abuurka oo socday suuqa waxa laga waayay galeedii $7 wadana tagay maxaa qaldan khalad intuu ka jira dadka miyaa dawladda waay dadka way dadaaleen waxooda way beerteen hawshooda way qabsadeen laakiin dhibaatada dawladda ka taagan tahay transportation ma haystaan kayd ma haystaan taageero ma haystaan another income kala ma haystaan ee waxa inta meel ku kaydiyaan ay ku sugi karaan qofkan uu baahan yahay intaas soo shaqeeyay intaas bilow shaqeynaa suuq inuu geesto wax la shaqo taasna marka waa wax government-iga quseeyay qofka miskiinka oo beeraha tacbanay eed ma lahan wax uu leeyahay ma jirto dadka aqoonta loo beeraha ka shaqeynaa eed ma lahan mid u dambayso pointiga saddexaad u dambeyn soo gabana waxa waaye intaan dibadaha wareegay waxaan soo arkay si gaar ahaan Yurubta Ingiriiska guri kasta waxa qasaba in 10 geed lagu abuuro kala nooc guriyahoodana kan ugu weyn inta ma dhamo saafadan halfka ma dhamo intaas waxa ku qasban tahay in 10 geed aad ku abuurto kala nooca soo dhagan deelka guriga ciidamada jiro kaydka ilaaliyo hadaa geed goyso geedka abtiro leeyahay qabiil uu leeyahay aabiisa la yaqaanaa awowgiisa la yaqaanaa meesha ku dhashay la yaqaanaa xil meesha laga keenay la yaqaanaa qabiilada meesha naga gashay xagga ma sha Allah geedaha la dheeryaal waa macna hadaa isku taabato geed sabab la'aan xabsi iyo ganaax leedahay macna anaga ma hayna geed 30 sano jira waxa inta hoos la galay makiinad rag la siiyo ama mobile yar oo kursi laga sameeyana ama alaab jiif laga sameeyana wax binaadan ilaa shan ma jiro marka beeraha waa nolosha codka beerahana inaan dhageysano codka beeraha hadda waxaan ka rabnaa inay wixii shaqo u badashaan wa jazaakumullahu khayr wa dhiiraan noqda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh